mujaahid cali jeyte gudoomiyaha gobolka hiiraan oo umar in daahir amiin jeeso uu ka baxo magaalada beledweyne eedo culus oo loo jeediyay iyo masaafarin lagu sameynayo oo warbixin xasaasi oo lagu kala wadaagi doono xogta muhiimka ee ku saabsan gudoomiyaha gobolka hiiraan oo xildhibaan daahir amiin jeeso ka soo masaafarinayo magaalada beledweyne isku darbilsho iyo kala dhantaalida shacabka deegaanka ayaa lagu eedeeyay sheegaraya warbixintan oo ku afiya dunida malba ku tooran muuqaalkan qaybta faalada nagula wadaaga aragtidiina waa hagaag aan ku bilaabo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa war la yaab leh ka soo saaray daahir amiin jeeso oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan daahir amiin jeeso ayaa lagu eedeynaya inuu isku dir bulsho sameeyey isla markaana uu kala dhantaalay shacabkii u hoyganaa dagaalka lala gelayo ururka al-shabaab isagoo warka uu ka soo saaray gudoomiyaha cali jeyte cusmaan sii joogitaanka magaalada beledweyne ee gudoomiyaha daahir amiin jeeso waxa uu amar degdega ku siiyey in laga saaro magaalada isla markaana jeeso uu ku laabto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo arrintaas ay noqotay mid hadalhayn ballaaran ka dhex abuurta bulshada degta magaaladaasi kadib markii uu daahir amiin jeeso isku diyey inuu isku diro beelaha xawaadle iyo gaaljecel oo ah dad ehel ah isla markaana wada deegaano ka tirsan gobolka hiiraan daahir amiin jeeso oo dhawaan warbaahinta soo fadhiistay ayaa gudoomiyaha cali jeyte cusmaan ee dusha kaga tooray isagoo markaasi qiil u sameynayay sii joogitaankiisa magaalada beledweyne iyo isku darka bulshada ee lagu eedeynayay maalmihii lasoo dhaafay in daahir amiin jeeso uu ka shaqaynayay xogo kala duwan oo waaweyn oo ka soo baxaya xaaladda magaalada beledweyne iyo sii joogitaanka daahir amiin jeeso ayaa markaasi muujinaya in maamulka gobolka hiiraan uu go-aan rasmi ah ka qaatay sii joogitaankiisa iyadoo lagu wargeliyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya markaasi maamulka gobolka hiiraan in si degdega looga gaaro xaaladda magaalada isla markaana daahir amiin jeeso laga saaro magaalada beledweyne maadaama uu khatar ku yahay shacabka Soomaaliyeed ee markaasi u istaagay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isla markaana u diyaar garoobaya xilligan inay toos magaalada beledweyne uga abaabulaan dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab daahir amiin jeeso oo markii hore magaalada beledweyne u tagay inuu ka qayb qaato dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isla markaana uu beesha gaaljecel uu ka soo jeedo dagaalka geliyo ayaa markii uu magaalada tagay bilaabay kala dhantaalid isagoo la soo baxay weji aan ahayn kii laga filayay ahaa in shacabka Soomaaliyeed ay markaasi diyaar u noqdaan inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalka ba'an la galaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda sheegay inay diyaarinayaan qorshe weyn oo gobolka hiiraan looga ciribtirayo ururka argagixisada ee al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay isku baahinayay deegaano ku yaala gobolka hiiraan sidoo kale beesha xawaadle ayaa la sheegay inay dagaalkan ku keliyowday arrintaasi oo dhalisay in shacabka deegaanada gobolka hiiraan dega ay ku kala qaybsamaan sida loo wajahayo dagaalka lagula jiro kooxdan al-shabaab ayaa hadda wajahaya xaaladda ugu adkeed abid iyadoo macawiisleyda deegaanada gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha xawaadle ay deegaano badan ka xoreeyeen ururka al-shabaab iyadoo kooxdu ay wajahaydo xaalad adag oo la xiriirta dhinaca nolosha iyo sida markaasi ay u maareynayso dagaalkan ay kacdoonka shacabku bilaabay hogaaminayaan ee la doonayo in kooxdan gabi ahaanteedba lagu soo cirib tiro jiritaankeeda deegaanada kala duwan ee dalka
sheegaraya xogaan qayd faran muddo wadaag aragtidina tan iyo kulansi dambe nabadgeliyo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online